gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir Maxamed Abuukar Jacfar ayaa dhaliyay barnaamijka kalamaan ee ka baxa radio kulmiye kale waran ku darsado wax yar kalamaan ay warka soo diiso oo qosay laamiyada markay soo diiso warkii saaxiibkay abaan goro isoo wacay war arrintan sameeyno arrin fiican imaarto wax aniga dawladda dhameed aad wuxuu sheegayso inuu wax qabo weyse anigoo kamid ah inaan wax qabta ay sheegayso amaan uma arkaan aniga taas amaanna ma aha dawladda tan ay qabanaysa taas af gooni ay dhisaysa tan dayn la ay dhisaysa aniguna waxaan kamid ahay dawladda marka ayga dhiganayra amaan in aniga dawladdiina aad tiraahdo xuma qaban karto adigana waxba qaban kartaa kaliya gudoomiyaha Maxamed Abuukar Jacfar ayaa ku eedeeyay milkiilaha radio kulmiye Abwaan Guure in waa matashiil oo ka bacdi wuxuu ku soo xijiyay markii inuu warxumo badan soo daayo oo mid soo wareysto anigu meel iska joogo oo qof walba oo tago yira ana Daynile saana ka jirto xabsiga ku yar cusub oo la yiraahdo waxaas uu bilaabo marka waxaas oo kale danaha uu leeyahay in saxaafadda loo adeegsado ma siyaasad oo si kale loo rabo mugta hadii uu si kale وربا سياسات إنه ضد حكى الشاقو سيداركتي هؤلاء وسلامتي